aad iyo aad baad u mahadsantiin marka labaad waxaanu halkan u joognaa oo maanta ka hadlaynaa waa arrinkii TV-ga Badacas oo si cadaalad darro ay maxkamadda degmada Hargeysa ay ku xayirtay kadibna xayiraadii ay ugu dartay in alaabtii taallay loo fasaxo dadkii guriga lahaa oo deetana loo xaraasho badna la gubo oo stuudiyihii meesha ku xidhnaa aandhahay ku saaranayna koo la gubayo badhkii kalena la xaraashay waxaasina waxay ka dhacaysaa reerkii TV maxaa lahaa gurigan iyo garsooraha maxkamadda degmada garsoorayaasha mid ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda degmada oo garab is siiyay oo isku kaashaday oo si sharci darro ugu dhaqaaqay TV-ga marka waxaanu ka codsanaynaa maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda Raabaanka gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay hawsha soo farageliyaan TV-gan waxa weeyaan Soomaaliland beelay ku dhisan tahay TV-gan beel baa lahayd kalidii eeganaysay TV-yada Soomaaliland ee faraha badan ku lahayd kadib waxaanu u arkaynaa weerar lagu soo qaaday reerkii ciidan xalaashatayna waa ciidii deegaan ahaan isku soo xignay waa Saacad Muuse waa walaalahayo de oran mayno Saacad Muuse wada xun yahay laakiin de afar iyo saddexda isgarabsatay waxaanu rabnaa kuwii kale ee joogay ee de mas'uuliyiinta ahaa ee cuqaasha lahaa ee waxgaradka lahaa inay arrinkaas soo farageliyaan war haddii qof wax uu sameeyo de reer baa loo dhismeynaya waa dhaqanka Soomaaliland ka jira de reerkii ma wada xumeen inta wanaagsani inay arrinkaas soo farageliyaan madaxweynaha qarankuna soo farageliyo iyaanu ka codsanaynaa intaa wixii ka damaysa haddii wax laga qaban waayo iyaan hadalladeeda inta kale u dhiganaynaa maanta waxaan ogeysiinaynaa waxgaradkii Saacad Muuse inay arrinkaas soo farageliyaan wax ka qabtaan oo TV-ga reer baa lahaaye ay hawsha sida ugu dhaqsaha badan maxkamadduna de wax weyn cadaalad inay ku shaqeysay hayd haddii reernimo lagu shaqeeyo de wax cadaalad oo dalka jiraysa ma jirto cadaaladda dadka deeqda cadaaladda dadka isku haysa haddii cadaalad la waayo de nin walba halkuu doonuu mari wuxuu doonuu iska samayn intayna taasi gaarin waxgaradkii Saacad Muuse waxaan ka codsanaynaa inay arrinkaas ugu dhaqsaha badan soo farageliyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bahda warbaahinta cuqaasha dhalinyarada siyaasiyiinta reerka dhamaantood waxaan ku salaabayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta anaga saxaafadda isku yeernay waxaan rabnaa inaan faahfaahin guud ka bixino hawlo in badan soo taagnaa oo ku saabsan warbaahintii Badacas 24 TV oo xarunteeda guud Hargeysa ahayd cawaaqib ku soo ku habsaday inaan la wadaagno bulshada iyo dadkii TV-gan lahaa labadaba caqabadaha haddaan bilowno muddo imika laga joogo dhowr bilood waxa si joogto ah oo taxano ah ay xafiiska shaqadiisa uga shaqayn la'ayd qolo aanu ehelanahay abtiyalla iyo ah oo Saacad Muuse leeyahay oo hantida aan guriga kaga jirno iyagu lahaa hantida guriga waxaan ku galnay nidaam sharci ah waxaan ka haysanaa nootaayo sharci ah oo 4 sano ah 4taas sano waxaan ugu tala galnay oo ku cad inaan laga saari karin TV-ga inaan cashuur lagu kordhin karin iyo aan sifo kale abeeraatay loo isticmaalay muddada 4 sano gudahooda 2 sano markay dhamaadeen heshiiskii kontraageega waxa bilaabmay in caqabado la soo cusboonaysiyo la waxaan u baahannahay gurigii oo waxa imanaya dadkii lahaa taasina heshiiska noogumay jiran xaqiiqiyan waayo xarunta markaan 4 sano saxanay waxaan ku sameynay maalgelin waxaan ku sameynay stuudiyaal baan ka dhisnay gudaheega hawshii waxay noqotay inaan raahno war 4 sano markay noo dhamaadaan baanu ka baxaynaa haddii Ilaahay nafteena daayo amba aanu heshiiska sii kordhisanaynaa hawshaasina lama qaadan iyagoo awood isticmaalay waxay tageen maxkamadda degmada dacwad bay ka furteen dacwadaas si toos ah ayaan anaguna uga qayb galnay mudday socotay 3 bilood
saddexdii bilood garsoore Cabdishakuur Leeraa aad ugu mahadnaqaya hawsha gacanta ku hayay hawsha garsoorahaas wuxuu ku soo gabagabeeyay inuu telefishinka maadaama haysto heshiis 4 sano ah inuu dhamaysto xaajiyaduna ay iska sugto baahideeda la sugto markay muddadan ay saxeexday ay dhamaato tii baan ku kala nimid aniga waxa la igu xukumay markaa in 3 bilood ay dacwadu socotay lacagteeda aan bixiyo halkii baan ku bixiyay waqtiga waxaan u baxay safar xeebta ah amba safar shaqaan ugu baxay magaalada bil markan maqnaa ayaa qoyskii guriga lahaa oo isticmaalay mar labaad hadana awood waxay xaruntii TV-ga u la tageen gacan waxay u daateen xarunta waxaana jabiyeen albaabkii geedka ahaa iyo albaabkii gudaha labadaba iyagoo gacantooda ku fushanaya shaqaalihi xarunta ku joogayna dhamaantood waxa lagu amray inay ka baxaan waxay noqotay inay meesha fawda ka dhacdo shaqaalaha iyo dadkii ay wateen inay isku dhacaan anigoo maqan balay la soo hadlay waxaan ku wari waxay doonayaan u fuliya intaan imanayo hawsha markaan imid waan ka hawl galay markaan imid waan iyo hawl badan iyo buuq badan baan u galay intii midnaba nasiib xumo nagama aqbalin maxkamadan dib ugu noqonay maxkamadii waxa dhacday in gudoomiyaha degmada oo ay family yihiin qolada guriga leh uu ku qoro garsooro kale oo ay hadana families yihiin garsoorahaasi in aanu noo yeedhin Cabdisamed baa la ninkaas aqoon hore isku maana lahayn mana ogeyn goor tirkiiska lagu qoray Allahumma salli ala Muhammad iyadoo wax waraaq loo keenin iyadoo dacwad labadii dhinac la qaadin iyadoo wixii aan tirsanay iyo xarunteedii la jabsaday iyo wixii oo dhan aan waxba la iska weydiin ayuu wuxuu soo saaray fulin ah in xarunta ay la wareegaan qoladii guriga lahayd oo fresh siyaan qoladiina waxay sameeyeen boobkii hore iyo sharci darradii hore waxay mar labaad ku lifaaqeen inay baabiyaan istuudiyaashii labadii studio iyo qolkii baahinta oo dakhli fara badani run ahaantii naga baxay ruqsad sharciyana aan u haysanay inaan 4 sano markan ku dhamaysano aan ka wada hadli karno inaan ku sii jirno iyo inaan ka baxno labadaba caqabadahaas markay dhaceen waxaan haddana ku noqonay gudoomiyihii maxkamadda degmada wuxuu noogu jawaabay waxa la waxaan anigu idii haya ma jirto ciddii guriga lahayd u doonta hantidiini muddooyinka bil ku dhow muddo 7 ku dhow waxa gacanteeda ka maqan qalabkii xaruntii iyo dhammaan wixii aan xaq u lahayn oo dhan waxay ku maqan yihiin reerkaan abtiga nahay war waxa leeyahay hadii Soomaaliland wada la sheegi iyo dimuqraadiyadda noocan ku dambeysay dadka ku sii dambeyn doonto Allah wala shalay tole bariga dab la galiyay maantana uu qoyba dab la galinaya xaruntan TV-gu waxa weeyaan xaruntii kaliya ta beesha Ciise ku lahayd 15 TV oo Soomaaliland ka jira waa TV kaliya ta ka dhax shaqeynay nasiib daro waxaan aaminsanahay dagaalkii dooxa bici ka socday in Saacad Muuse oo soo raray magaalada Hargeysa iyo hantida aan ku lahayn magaalada Hargeysa beesha iyo bulshadii telefishinka lahayd waxaan u dirayaa oo leeyahay waa hantidiini gacanteeda kuma jirto cidaasna gacanta ugu jirta iyagoo isticmaalaya waliba awood iyo garabaysha talaabo kasto aad hantideeni ku heli kartaan way dib banaantay maraan leenahay waxaan sidoo kale baaq u dirayaa gudoomiyaha raxfaanka maxkamadda raxfaanka gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu hawshaas soo fargeliyo si degdegana wax looga qabto haddii waxba looga qabo waayo hanti la dhacay leedahay baan leeyahay anigu intaas aan walaal ku soo gabagabeynay wixii faahfaahina odayaashan uga baxaya haddii ilaahay naftii noo daayo intay hareero joogta inta magaca iyo muuqayga garanaysa dawladda madaxweynaha wasiirada waan salaamaya bacda salaan waxa weeye TV-gii aan ku lahayn Soomaaliland ee Ciise lahaa waa loo jahaystay hadduu qalab lahaa iyo hanti lahaa waa loo jahaystay gacanta laga qabtay dadkii lahaa ee maamulayay waa laga qabtay ma gali kartid baa leeyahay
waxa jirtay aqalka inuu gaari ku dhaxidhnaa oo uu ku xidhnaa waa lagala baxay gaariga waa la siiyay Sacad Muuse laha Sacad Muuse iyo laha gaariga waa la baxay waa la qaatay ninkii laha baa la siiyay waa noo diiday in albaabka aan ka galno waxa yagii inaan aragno inuu hantida cidii lahayd ku maqan iyo ku joogaba inaana waxba looga ogolaan wax la gubay wax la xareystay meel uu yaalo ma ogo cidii TV-ga ku shaqalay ma ogo waxa weeyaan waxaan leeyahay dadweynaha Soomaaliland dacaasi iskama naangay jira awalinagu maynaan dhac isdhex jiri dhacaynkaa isku weli inaga madheen laakiin waa la bilaabay dhac baa dhacay hantidii reer dhanile magaca ciisu hantii ku socday magac maal baa ka galay ciisa ma hay wax nin kaliyi meesha dhigtay waxa weeyaan waxa leenahay hantida iyadii madaxweynaha gudoomiyaha maxkamadda waxaan ka doonaynaa cidii fuushatay ee qabiilnimo ku fulisay garsooruhu ummaddu u dhaxeeya qabiil ma waxaan haysanaa inuu garsooruhu ahayn nin qola ah laakiin nin qola ah buu noqday qoluu u fuliyey hantidaadii kumana siin karo kumana arki kartid baa ka dhacday sidii bay u maqan tahay meel alla meel ay ku sugantahay anagu warmahayn nasiiya haddaan nidhina waa loo diiday waa la diiday waxaana diiday gudoomiyaha maxkamadda ayaa yidhi waxba inimaha iyo ordoo doodoonta shalaa loo tegey doraad baa loo tegey doonta buu yidhi doondoonta waxaan leeyahay war waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland war dhacaasi haddii wax ummadda ka dhaxeeyay yahay hadduu wax ummadda ka dhaxeeyo hore u dhacay uu yahay qabiil baan nahay hantida nin waliba iskiibu u leeyahay dee haddii lana dhacay dhucu meeluu ku joogi maayo nin itaal weyn iyo nin itaal yarba meel ku joogi maayo waa la isdhici waa la istaba socon haddii kale waxaan leenahay ka codsanaynaa dadweynaha iyo qolada haysataba waxaan leenahay war hantida iyadii halanoo soo celiyo iyadoo bilaa shuruuda halanoo soo celiyo dadweynaha Soomaaliland saasaan maqashinaynaa madaxweynaha waan maqashinaynaa ismadax meel la taabtaa oo laga sareeyaa ma jirto arrinka caynka ay halkaabu ka dhacay Hargeysa ka dhacay maxkamadda Hargeysa buu ka dhacay degmada weeyaan waxaan leeyahay war halanoo soo celiyo hantidayadii halanoo soo celiyo bilaa shuruud waxaan leeyahay sidaasaan kaga baxay عليكم ورحمة الله وبركاته بديمك أنا هذا الكوب بدين ما يود ماضي أنا مركان حسنا هنا حير كيجوا ما هنا فريق شنكو هذا له وان دافني وان تلا نبرين تاس انت مركان كاي مادو هذا الكوب هذا يوكليه انت كوبان مفتئة وحو هذا الكام مرتدي سعي تهي دعبان ترسلني دولة دا إيا شعب كبايو ديهين وحوقا حكما ديبا فليسي عدالة درو وحيقيون كم مغانا هنا عد كلاو ديبتو فليسي عدالة درو دا حوقا أمان كاكا ترسلني عدي اللي أفلي وحيقوا واسكا قادتي عدي قادتينا دا قبيل باكم مقعابان تاي وحان قبيل كوصو قادنا إنانا واصدا ما تمركا باقا يقو هنا الدولة دونا أوقاتو قبيل كينا أوقاتو قبيل كاسي قبيل لعنا ماها وسعد موسى وحبل نوكل السوعنين ولا يقو بوا اسكو جيران meel walba waan isku jiraa cid isdhacda ma yihiin
mana eegaynina dhacaan maantana waxaan leenahay war wixii xaggiinuu tagay noo soo celiya ceeb kale ma taalo saacad muuse aan weydiisanaynaa war dhankiinuu u kacay kollay in maskax daranunba wax samaysa waxaa kii maxakamadda joogay ree hebel ahaaye magaca lahaana wuu fuliyey kii magaca lahaana wuu fuliyey markaan soo goobnay sacad muuseba uu dhaafi waayey dee waxaan weydiisanaynaa sacad muusihii caqliilihii baa dambeeye war waxaa noo soo celiya in caqli dareenunbaa kulley fashay ceeb kale maanta ma taallo cid kalena kuma fadeexdaynayno sacad muusena ma fadeexdaynayno waxaan leenahay warin garaa daran baa wax fashay oo wixii ay faleen noo soo celiya wixii waan dhacannahay hadalkaa murtidiisu waa intaa